soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Cabdi ee Garowe waxa qayb ka ah madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani golayaasha kala duwan ee maamulka siyaasiyiin oday dhaqameed kala duwan iyo boqolaal shacab oo ka socday qaybaha bulshada Puntland soo dhaweyn isbariidan iyo salaan wada jira kadib wafdiga madaxweynaha Hirshabelle waxa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Garowe caasimadda Puntland afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Dabarani oo la hadlay warbaahinta ayaa la wadaagay ujeedada imaatinka wafdigan madaxweynaha Hirshabelle ee Garowe iyo wufuud kale oo soo gaaraysay Garowe saacadihii ugu dambeeyay madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe iyo wafdi hogaaminayo oo heerar kala duwan isugu jira kaasi oo qayb ka ah madaxda Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa caleemasaarka madaxweynaha dowladda Puntland iyo madaxda kale ee la doortay 8 Janaayo 2024 kaasi oo 25ka bishan ka dhacay doona madaxtooyada Garowe munaasabadaas waa munaasabad maalintii dhici doonta oo beesha caalamka ka qayb galayso iyo mid dhici doonta habeenkii oo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo madaxdoodu ay ka wada qayb gali doonaan waxa ay qayb ka yihiin wufuud maalmaha lagu soo wajahan oo Garowe aan rajeynayno inay soo gaaraan kuwaasi oo dabcan ay ku jiraan madaxda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya wakiilo heer caalamiya iyo xubnaha ka socda beesha caalamka wafdiga maanta soo gaaray Garowe oo soo dhaweeyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo hogaaminayo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe waxa ka sii horeeyay oo isna Garowe ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Mudane Cali Ciid waxa yana jooga xubno mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo xiriir kala duwan ka soo qabtay dowladda Soomaaliya oo kamid yahay ra'iisul wasaarihii hore Saacid oo kamid yihiin xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee heer federaal ee Soomaaliya iyo kuwa ka socda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya shakhsiyaad kale oo Soomaaliyeed oo caan ah oo ay ku jiraan fanaaniin iyo dad Soomaali aad looga yaqaano ayaa kamida waxa sidoo kale jooga isna gudoonka ku-xigeenka golaha wakiilada ee Jubbaland mas'uuliyiin kalena warshiyeenina inay maalmaha soo socda ay soo gaaraan maalmo kooban ayaa inaga xiga waqtigii loo asteeyay qabashada xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland ku-xigeenkiisa iyo gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland oo wada jira waxaana Garowe soo gaarayay wufuud kala duwan oo ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulada dalka iyo siyaasiyiin kala duwan oo horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya iyo Puntland intaba kuwaasi oo qayb ka noqon doona caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe.